xasan inay beero dhammaantiin waa idin salaamay soo dhawaada salaan sharfana idinku salaanay aniga iyo walaalkay xuseen waa isla joognaa ugaas ilaahay khayr ha kasi aamiin annaga inta muslinaba ilaahay ha ka sii oo u beernaxda dadkani marka waxaan idin leenahay soo dhawaada si wanaagsan u soo gala markaas kadib insha Allah waxaan bilaabi doonaa inaan ka hadalno arrinka haddii Ilaahay yiraahdo hadda ismaan lacagta halka lagu soo diraa marka walaal waxaa ku soo diri kartaa haddii aad Muqdisho joogto iyo haddii markaas Hargeysa aad joogto adiga maxaa la ii sheeg Somaliland waxaa lagu soo diri karaa FC Plus ahaan lambarka halkaas lagu soo qoray I think waa la arkaa Xuseen ma la arkaa lambarkaas si fiican haddii ama wadan kale joogto haddii salaam bangi aragtay inaad isticmaashana sidoo kale lambar salaam bangina halkan ku oo maxaa la ii sheeg ku yaala والله هل في عم بعد هسا وكوجو أوجا جارجاري دتك أو ما هتسنت ولا الكي إلهي كشرفه ده يحضر وشوكو مثلا صاحبي جدا سوا إن سلامي hadda 500 iyo marayaan wali laakiin waxa laga yaabaa inaad si fiican soo galaan fariintan wada gaarto marka ma bilaawna mise wax yar aan u sugnay ilaa 600 haday gaaraan okay waay 600 hadda waaba already wala jooga 600 yani hay adima bilaaway misana bilaaway waa soo dhaweey dadka kadib horta salaamu calaykum waa mahadsantiin dhamaantiin waxaan idinku salaanaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahay halkan iigu jiro ee gabdhaha iyo wiilasha iyo odayaasha imaamooyinka hooyooyinka aabooyinka habaryarada adeerada abtiyaasha dhamaantiin isugu jirtaan waxaan idinku salaamay salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa idin la hadlaay ma aha wiilkii fanaanka ahaa ee waa wiilkii dhalinyarada ahaa ee maxaa la ii sheeg jeclaa wanaaga iyo samaha dadka maantana waxaan ka hadlaayo ma aha wax fan iyo wax u dhow iyo wax la ag dhigi kara xitaa ma aha waxaan ka hadlaayo umana baahni inaan ka hadlo maanta waxaan ka hadlaynaa oo rabnaa inaan uga faa'iideyno maanta alxamdulillah ilaahay magacuuna siiyay waxaan rabnaa inaan uga faa'iideyno dadka maxaa lahaa dhiban maanta maxaa lahaa magaaladeenan joogo waxaana insha Allah isku dayi doonaaba hadduu ilaahay yiraahdo inaan fanka dhankaas uga bato oo dad caawinta uga bato maadaama hadda aan awoodo inaan wax badan maxaa la ii sheego dad badan qaarkood aan qaban karin ama awoodo inaan qabto marka insha Allah waxa marka wiilka idin la hadlaayo waa wiilkii u baahnaa inuu caawiyo labadii gabdhood ee yaryar ee qaladka laga galay waxaan rabnaa inaan ka hadalno arintaas ku saabsan labadaas gabdhood oo aan caawino oo inti kalaamkeena Soomaalinimo walaalnimo haddana waxa laga hadlaayo maanta oo qaladka laga galay ma ahan dad waaweyn ama gabdho waaweyn oo qaangaar ah ama maxaa la ii sheegeen dad maanta maxaa la ii sheeg masiibada ku dhacdo si fudud uga baxsan karo waxa ku dhacday waa saqiiro 3 jir iyo 4 jir waa hodan iyo wixii la mid ah oo kale maanta markii aabo gabadhiisii arinta noocaas ay ku dhacday xanuunka ay leedahay waxaa dareemi karo kaliya qofkii aaba ah ama gabar dhalay marka waxaan rabnaa toobiga ugu muhiimsan oo rabna inaan ka hadalno idinkana idin fahansiino waa intaas soo dhawaada waxa anaga rabnana waxay tahay hadda inaa idinkana inta kalaamkiina aan ku caawisaan oo aad anaga noo soo marisaan oo ilaahay dartiis nagu aamintaan annagana waxaan sameyn doonaa sidii ilaahay iyo rasuulkiisaba nala og yahay inaa inta amaanadaas aan nagu soo amaanaysatay inaan inta qabanno si waadax ah oo nadiif ah oo saliim ah inaan dadkii markaas aan noogu soo fartay inaan inta ugu geyno aan kadibna idin tusno waanada iyo talada gadaal nooga dhig waxaan rabaa kaamirada haddaa aragtaan inaan ku wada jiro aniga iyo dayax raali noqda waxaan rabaa horta arinta dayax ka hadlay arin xaqiiq ah waaye waana arinna wada taabatay dhammaan qof kastoo Soomaali ah iyo guud ahaan qof kastoo muslim ah way saameynaysaa arintan dhibaato weyn ayaa gabdhaha Soomaaliyeed ee caruurta loo geystay
waxaan rabaa dad badan inaysan ogeynaa laga yaabaa se wax u dhaceen. halkan waxaa ku hayaa war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka. qaarkiin waxaa laga yaabaa inay la yaabaan Dayax oo fanaan ah inuu haddana arrin bulsho uu ka hadlaayo. waxaa ogaataan ani xuseen ahaanna waxaa ah saxafi Soomaaliyeed, Dayaxna fanaan Soomaaliyeed waaye. labadeena waa ismaqalnay xalay waqti hore. nin kaloo wariye oo asagana BBC-da ka shaqeeyo saaxiibanahay Mawliid Xaaji Cabduwi, asagana ajir Allah ka siiyo, arrintan gacan uu ka geystay. waa wada hadalnay, waxaan ku hadalnay maxaan sameyn karnaa arrintan hadday dhacday. si fiican Dayax uu ila soo hadlay, waana aad uun u soo dhaweeyey inuu arrintan gacan ka geysto. isla markiina waa bilownay, waa ku talaabsanay. marka intaanan u galin sidaa u caawin kartiin qoyskaas Soomaaliyeed, waxaan rabaa inaan wax idinka xasuusiyo balse wax u dhaceen. war-saxaafadeedka waxaan rabnaa annaga ma rabno inaa cid ku xadgudubna, ma rabno mana rabno war aan sax ahayn inaan idin sheegno. waxaan rabnaa warkii dowladda ka soo baxay inaan idinla wadaagno oo aad wax badan ka ogaataan. wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ee xukuumadda Soomaaliya waxay si aad uga xun tahay kufsiga loo geystay 3 caruur ah oo da'dooda kala tahay 3 jir iyo 4 sano jir, kuwaasi oo dhibka loogu geystay degmada Afgooye ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya intii u dhaxaysay 30 ilaa 31 Maarso 2020 isbuucii hore waaye. kufsiga kale wuxuu ka dhacay midkan labada gabar wuxuu ka dhacay Afgooye. gabar kale waxaa jirta iyadana balanbale oo galguduud ah maamulka galmudug iyadana ka dhacay. laakiin annaga hadda qoyska aan la hadalnay waxaa waaye qoyskan Afgooye. maamo Nuurta waxaa la hadlay saaxiibkay Dayax ee ismaqleen. si fiican maamada way noo ogolaadeen inaan ka hadalno oon caawino, maxaa yeelay xitaa qofka haddaa u baahan tahay inaad caawiso marka hore waa inaad isaga ka qaadataa idin oo ah inuu kuu ogolaado inaad isaga caawiso. maxaa yeelay dadkani ummadeenan Soomaaliyeed waa iska dhib badan yihiin. marka saasaa waxay nagu kaliftay inaan aniga inta waco la xiriiro familkii maxaa lahaa caruurtaas laga dhibaateeyey oon dhaho fasax ma u qabaa inaan idin caawino, fasaxna ma u qabaa oo ma hadli karaa oo arrintan ma soo dhexgeli karaa oo wax ma ka geysan karaa. way ii fasaxday wayna ii ogolaatay. that's why marka kaliftay arrintan saa u dhacday. marka saas ogaada ogolaansho haysanaa waalidkaas inaan caawino. sababtoo waa dareemi kartiin dhaqaalaha loo baahan yahay. qof markuu ka xanuunsado cisbitaal galo, gabdhaha xaaladoodan way liidataa runtii. qaramada midoobaa ka hadashay hay'adda UNFPA la dhaho. دكتورka haysta cisbitaal Madiina Maxamed Yuusuf uu ka hadlay. Dayax page-kiisa ku aragteen sawir screenshot laga soo qaaday, muuqaalka waa daawanaani Dayax. marka gabadha kale iyadana xogteeda waa raadineynaa sida Dayax sheegay. dad badan la isku daya in la caawiyo. haddii helno hadda waxaa gacanta ku haynaa labadan gabar isbitaal Madiina jiifa oo 4 iyo 3 sano jiraan. gabadhaasna 7 sano jirtaa sida wasaaraddu sheegtay. marka arrin xun waa ognahay. dadka qaar waxay leeyihiin hala dilo, hala ganaaxa, dadkaas xabsi hala dhigo. annaga hay-adaha shaqo ku leh howshaas iyagaa u dhaafno. because annaga waxaan ka hadlay annaga sharciga oo dadkaas lagu qaadayo kama hadli karno, mana faragashan karno. annaga waxaan ka hadlaynaa keliya dadkaasi dhibka ku dhacay wax yar oo markaasi maxaa la ii sheegay fadhiga uga kici karaan maadaama dad dan yar ay maanta yihiin. wax yar oo qayb kamida intoodan maxaa la ii sheegay hor socodkooda si ay uga qayb qaadan kartaan. kaliya annaga waxaan ka hadlaynaa waa intaas. marka wasaaradda waxay ka digtay in gabdhaha muuqaalkooda ama sawirkooda ama magacyadooda in la isticmaalo. waana ogtaa Dayax laftiisa xal waa ka wada hadalnay. ma sheegi karno magacyadooda, ma sheegi karno, ma idin la wadaagi karno muuqaalkooda. may wax oo hadda ma arkin oo mashakil gaar kama taagin in labada gabdhood yihiin isla dadka qaar waxa laga yaabaa jiraan oo loo baahan yahay in la caawiyo bis magacyadooda iyo important dadka qaar saas noola fahmaano sababta idin la wadaagi la'anahay taas waaye. marka akoonada uu Dayax soo qoray ayaad ku soo hagaajin kartaan haddaad doonaysid inaad caawisid gabdhahan Soomaaliyeed. si akoon ahaanna waa usoo qoray oo Salaam Bank toos uga soo dhici karo. maxaa lahaa ii sheeg maxaa lahaa telefoon ahaanna waa maxaa lahaa ii sheeg waa la soo dhigay. raalli ahaada commentskan waa akhrineynaa. talooyinkiina way fiican yihiin.
aniga dayax mararka qaar hadalka hadduu iskeen soo dhex galo arrintaa ka hadlayna xasaasi arrintaa ka hadlayna xasaasi qof kasta waxbaa ka guuxaya idinka laftiina hadda haddaan idin casuuno hadal badanaa idinka soo baxaya waa ognahay raalli naga ahaada su-aalaha waana soo weydiin kartaan dayaxow 2 3 4 intaa ka gaartid haddii okay way wanaagsan tahay okay waxaan idinka codsanaynaa intiinan hadda online-ka ah eena daawanaysa inta gadaal ka daawan doonto waa kaas laakiin intiinan hadda online-ka ah waa sidan waa u jeednaa waxa inay masiibo rabbaaniya tahay oo wax aad iyo aad iyo aad u xun oonan qof bini aadmi iska daan rag ay uusan ku kici karin inay tahay waa u jeednaa marka kaliya waxaan rabnaa intiinan hadda online-ka ah sidee lagu caawin karaa ama sidee nagu garab istaagi kartaan maxaa yeelay inagu waxaan u baahanaa waa idinka marka waxaa commenti ahaan kaliya iska daaya waxa kaleento aad ka hadlaysaan oo dhan iska ofgareeya waxaa kaliya oo inoo soo qortaan sidee ayaan inagoo wada jir ah u caawin karnaa dadkaas masaakiinta ay caruurtaas qaarna annaga aan dhali karno qaarna walaalaheen oo kale ah marka waxaa fadlan noo soo qortaan fikirka aad ka qabtaan xitaa ha soo qorin sababtoo fikirka kasta oo ka qabtaan inuu xun yahay waa laga midaysan yahay marka laakiin maxaa lahaa ii sheeg waxaan rabnaa kaliya inaad ka hadashaan sidee ku caawin karnaa ama sidee annaga nagu garab istaagi kartaan maxaa yeelay innaga waxaan wada doonaynaa inaan wada caawino waayahay intuu dayax sheega waaye qof kastoo Soomaali ah way dhibta waa wada ognahay haddana waxaan rabnaa see gacan uga geysan karnaa haddaad rabtid sadaqo inaad baxsatid haddii waa ognahay sadaqada wax badan ay tartaa qofkii ay caruur la-aan hayso ilaahay caruur uu ku siiyaa qofkii caafimaad u baahan oo xanuunsan ilaahay uu ku siiyaa mararka qaar cimriga xataa nabiga sallallahu alayhi wasallam marar badan uu ka hadlay qofka cimri gaabka wax badan ay ka hortagtaa sadaqada inuu cimri dheeri ilaahay ku siiyaa laga yaabaa cimriga inuu ilaahay ku barakeeyaa laga yaabaa marka sadaqada hala baxsado marka waxaan ka cabsanaynaa inaan kaftankii waxaas oo dhan la iska joojiyo dadka qaar hadalladiisu qorayaan ee laga hadlo kaliya arrinta muhiimka ay hadda taagan inagu ka hadlayno sidee lagu hortagi karaa waxaa diyaar u nahay inaan caawino walaal gabadha injineer xasan ina beer mahadsanid raggaan iimaanka maxaa gabdhaha ku diray maalin walba saqiir la kufsaday maxaa maan ku jiri karnaa taas waxaa ka hadli karo dadka maxaa la ii sheeg shaqalku kule maxaa la xukuumadda waaye waxa maxaa la awood u leeyahay taas ka hadasho ninka soo gabaryar dayax gabadhan saytuun xasan waxay leedahay soo celi waxay leedahay sidee ku caawin karnaa sidee ku ogaan karnaa inay lacagteena gaartay waxaa ku ogaan kartaan waxay ku ogaan karaan waxaan sameynaynaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo qof baan waxaan sameyn karnaa qof kasta oo markaas lacag u soo diro ama deeq markaas ayaga soo gaarsiiyo waxaan sameynaynaa waalidkii caruurta dhalay ee aan u geynaynaa waxaan leenahay qofkaas lacagtan ku soo diray qofkii isaga la isla hadalsiinaya si uu qofka isagana u qanco oo sadaqadiisa inay gaartay markaas maxaa la ii sheeg uu u ogaado qof walba wixii karaankiisa inuu ku caawiyo caruurta la dhibaateeyay laga qabto Allah kala haray ayaan Yuusuf mahadsanid waxba maxaa la sadaqa horta yaraan ma gasho hadaa maanta $1 ku darsataa yaraan ma gasho hadaa $1 ku darsataa yaraan ma gasho $50 $100 $1000 $10,000 it's okay wax kasta oo sadaqo soo baxsataay yaraan ma galaan marka muhiimadda laga hadlayo waa sadaqo laakiin lacag badan lacag yar midna ma ah Cabdi Cigaal aniga diyaaraan u ahay caawinaada cabdi hadda diyaarta walaal akoonadaas ku soo dir waa mahadsan tahay cabdi maasha Allah waxaan rajeynayaa inaan u istaagno gabadha Soomaaliyeed saqiirada cabdiraxiim cabdi jaamac waa mahadsan tahay waxaan ka codsanayaa inaad wax ka caawiso arrinka aan ka hadlayno waxaan ku caawin karnaa in moralka loo dhiso gabdhaha yaryar iyo in lacag u aruurino raxmo muuse tahliil waa mahadsantahay walaashay waxaad sameyn kartaa waana nala soo xiriiri kartaa maxaa la hadii markaas aad u baahan tahay ina maxaa la nala soo xiriirto page-ka message waa igu soo qori kartaan Abu Xuseen isagana waa la xiriiri kartaan lambarka waa soo wici kartaan si markaas aan uga wada hadalno sidii lagu caawin lahaa lacag kasta oo soo dirtaan waxaa la sameyn doonaa si caadi ah waxaa lagu sheegi doonaa dadka markaas ay soo gaarto waxaan ku caawin karnaa dadkaas walaalaheena ah abuu sadaqada waqtiga waa kula garab istaagi karnaa insha Allah wixii tabarteena afaadumo la jecelay waa mahadsantahay walaashay
hal u akhrinana comment midna ma ka tagayno wixii markaas important ah Faaduma ila jeclay waa mahadsantaa walaasheena la garab istaag sadaqada yaraan ma gasho weynaanna ma gasho marka waxaan ka codsanaynaa inaad maxaa lahaa arrintaasi nala garab istaagto inuu caawiyo baan rabaa gabadha injineer xasan inabeer waa mahadsan tahay numberka ku celi halkan horta hadda ma ku qori karaa numberka talo commentiga يسرى محمد السلام عليكم maxaa laga hadlaa GBV case way arinta gender-based violence okay waa ognahay taas hay'adaha qaabilsan ku xiran waa sax in hay'ado qaabilsan yihiin laakiin maxaa la ii sheeg inagu hadda waxaan doonaynaa waxay tahay hay'ad iyo tayada anaga waxba shuqul naga kaliya waxa kasto caawinayso waa u diyaar laakiin anaga waxaan hadda rabnaa waxa waaye wixii markaas anaga tabarteena ah iyo magaceena inaan ku caawino waan ka qayb qaadanaya diyaar ayaan u ahay ikraan xasan maxamed walaal waa mahadsan tahay soona dhawow waa ku mahadsan tahay inaad hadalkaasan dhahday fadlan abaa nagala qayb qaado waa mahadsan tahay warcaawintu intaas wacyigelin sameynta imka laga qaado wacyigelintii sakhiir kiiskan annaga kaliya waxaan sameyn karnaa inaan dadkan caawino waxaa u baahan nahay inaan fahantaan arrinkan ka hadlayno innaga dadku waa caawinaynaa laakiin xaqoodii iyo cadaaladoodii dowladda laga sugayaa taas inay ka hadasho ay awood ama tilaabo sharci ku qaado dadkii markaas qaladkaas ka galay laakiin innaga waxaan sameynaynaa asxaan fal EVC ma lagu diri karaa lambarka maadiga dayax ah nuurto cali haa walaal anaan haayo hadda lambarkaas EVC waa kusoo diri kartaan waana wada hadli karnaa insha allah hadduu ilaahay yiraahdo hosbitaalka mejifaam saxaafad caawidooda diyaar baan u nahay cabdiraxmaan siraaji maxamed mahadsanid walaalkay waxay joogaan isbitaal madiina ee jiifaan marka sababtaas aan u doonaynaa in degdeg lagu caawiyo maadaama isbitaal ay jiifaan ikraan haa waa lambarka meesha ku dhigan walaasheen waxay markaas ku caawin karto fadlan waa nagu soo diri kartaa qofkan soo celi dayax cabdicasiis inaa wax ku darsaa walaal waa mahadsantahay cabdicasiis maxamed fadlan wax ku darso inta markaas awoodaada ah axmed cabdi wuxuu leeyahay lambarka lacagta lagu soo tuuraa ma aragno aawe lambarka lacagta lagu soo tuuraa 252615 example wuxuu ka bilowdaa macal furaha raacsan ka fiiri telefoonkaaga soo meesha kuma qorno meesha ku qoran yahay kor hadda aan soo saarnay teeda kale marka aan leefka ka baxnayna waxaan sameyn doonaa si caadi ah insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo aan ugu soo qori doonaa okay lasim lamish waa walaashay waxaa waaye lambarka meesha ku xusan waa mahadsan tahay qoran yahay ma ku qorno ha of course waa ku qoran yahay marka kaas leh xagaa lacagta lagu soo diraa noo soo sheeg walaalo waxaa waaye kamaal axmed salaan waa mahadsan tahay walaalkay lambarka meeshuu saaran yahay laakiin waxaan sameyn doonaa insha allah after life baan waxaan sameyn doonaa waan kusoo diri doonaa lambarka halkaan lagu soo qoray hallo qofkii oo dibadda jooga dayax isagana xitaa qofkii dibadda jooga lambarkaas waa soo wici karaa si toos ah noola soo xiriiri karaan dadka okay marka ay dad zaid u badan soo hadlayaan commentiyada kama gaarna walaal ilaahay caafiyo gudhaha dayaxo numberka meesha ku qoran miya marka waxaa waa inaan hadda wixii muhiim ahaa oo dhan waa ka hadalnay fadlan nala caawi labada gabdhood ee masaakiinta ah ha of course waa kana lambarka ha mahadsanid ikraan aada u mahadsantaa walaashay Djibouti ayaan joogaa sideen ku soo diraa LK lambarkan waa lagu soo diri karaa Soomaali si kasta waa loo soo diri karaa haddii
waxaan sameynaynaa muhiimadii dhan oo live-ka hadda aan ugu jirno waa ka hadalnay Xuseen Abo waana mahadsan tahay marka hadda waxaan waa u gabagabeynaynaa lambaradana meeshaan ku qoraynaa markaas meel kale aaladaha kale inta aan markaas ka hadli karnana waa sii gelinaa hadda maadaama waqtina sii hayo walaalahay waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol waxaa idinka codsanayaa in garab istaagtaan oo nagu garab istaagtaan inaan maxaa la ii sheeg dadkaasi aan caawino oo caruurta ah oo aadka u yaryar lambaradana dibna waa kaga soo qori doonaa intana waa ku qoran yihiin live-kan waa ku qoran yahay gadaalna waa ku soo qori doonaa wixii markaas faahfaahina nala soo xiriira boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin ilaahay idin karaamay ilaahayna idin sharfo insha Allah waanad mahadsantihiin marka waan gabagabeyn doonaa tan kale sidoo dayax ku bilaabay barnaamijka dayax wuu ka shaqeyn doonaa intaanna ma ku ekaan doono qof kasta oo dhiban hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah waxaan sameyn doonaa dad kasta oo dhiban oo markaas xaalad degdeg ah u baahan waxaan sameyn doonaa inaan hadda kadib caawino hadduu ilaahay yiraahdo ilaa berito wax ma naga sugi kartaan waayo xaaladda way xiriin haa Yusra walaal Maxamed waa mahadsan tahay waa sugi karnaa haa ilaa iyo week soo socdo waxaan isku dayaynaa inaan kadib inaan gudbino laakiin intaas waxaan sameynaynaa taada kale lambarkani WhatsApp uu leeyahay qof kasta oo fariin u baahan inuu noogu soo diro si aan fariintiisa u akhrisano oo aan u wada hadalno insha Allah wax kasta oo macquul ah aan insha Allah isku caawin karno aan u garab istaagna caruurtaas waa mahadsantihiin dhamaantiin insha Allah waana idinku soo qori doonaa wax qoraal ahaan